السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا gurigan waa aragtaan guriga aan sameynaayo waaye isbuuxan oo dhan dadka oo kaliya waxa ila socda oo snapka ka arkay meel kale ma soo gelinin snapka la soo gelgelinaaye because surprise ayuu aan fahanteen guriga ila qeylino iska dulqaata oo cusub yahay asle wax ku dhex duwaya so marka surprise oo ahaa asoo surprise ugu sameynayo hooyo maanan awoodin maxaa la lahaa inaan live soo gala ama video waa kasoo duubo ama waxaa soo sameyso marka qolka ku dhex jirno qolka hooyo u hagaajiyo qolka dhan waxaa ka dhigay gray iyo brown fahanteen flowerkii baali wixii dhan soo marka insha Allah videogan hada duubayo hooyo war ma ka hayso ayada hooyo guriga iska degantahay maxaa la dhahaa kirada bisha waa laga bixiyay this is her room qolkeeda waaye soo markii ida war ma ka hayso insha Allah waa rajeynaa inaan soo duubo markii oo maxaa la dhahaa gurigan ay aragto hooyo sidee noqon doonto iyo sidee maxaa la dhahaa oo hadli doonto soo horta actually waa u sheegay waxa ku dhahay hooyo guriga ku raadinayo guriga ku kareenaya waxay dhahday qarash ha gelinin like gurigan fullkiis 4 qol iyo fadhiga $23,000 ku baxday lacag Kenya diilana almost 2.5 M soo marka ciyaar maahan sadreemoy shaqada dhan shaqeynaaye alxamdulillah ducada hooyo ku imaatay haddana ayada la gurigu sameeyay waana surprise oo war ma ka hayso waxay isleedahay xabsaabeen walba ku imaan jirtay maalmahan maxay ka dhuuminaysaa miya soo qolkan hooyo qolkeeda waa still sirtan wuxuu wataa miyaaradaas it has a lot of nalal badan ay qabtaa qolka guriga ugu weyn waaye maxaa la dhahaa masquul uu leeyahay actually guriga oo dhan waa 4 qol iyo fadhi okay fadhigaas waa la sameeyay still wuu maqayahay but waa kana qolka hooyo sariirteeda waaye all of it sariirta waxa ka dhigay gray iyo maxaa la dhahaa brown saa aragtaanbo all of it maxaa la wallpaper ma kan magaciis kan darbiga la suro geedka oo maxaa la dharka la surto sariirta mattresskeeda xitaa gray baan ka dhigay faanteen kan waa gold waa argoosin actually gold iyo brown ka hal waa okay waxa ka wada dhigay gold iyo maxaa la dhahaa gray guriga oo dhan insha Allah doo ilaahay yiraahdo soo aragtaan ana decoration kan yarka u soo qaatay because sariirta zayd u qurux badan waxaas la decoration qolka taa ka badasid like wax badsi wax beeleeleed qaab darro inuu ka qol oo noqda ka xabsada full view-giisa waa wiilka ugu yar sariirtaas la soo gaday sariirta hooyo musqusheeda wax dhan waa ka iyadoo full furniture-ka qolkeeda sariirtaas decoration ka war hadii aad saxdid alaabta kale oo weynkan waa iska soo baxaysaa afaanteen oo maleyna soo marka kana ayada markuu dimiyo let's go qolka labaad baa joognaa qolkan waxa iska leh walaalkeyga iga yar ilaaha u fududeeyay imtixaan uu sameeyay KCSE uu ku dhameeyay la iskoolka oo dhan uu fadhiyaa hal isbuuc kadib uu soo baxaya soo marka qolkan saana ugu dhigaa asagana gray iyo brown leh waay okay wallpaper ku aragtan brown ka dhigay TV-ga iska leh PlayStation kiisa miiskiisa everything saasa ugu dhigay miiskaasna saas ugu yeelaa halkaasna PlayStation loo saaro duu ilaahay yiraahdo waxa yiriiskana remote kiisa waa qolkiisna still waa ka saacas laakiin cadaan ku jiro okay gray brown white waa iska jeclaaday brown iyo white waa iska jeclaa hortaan graygana gurigana ugu daray soo marka sariirtiisa waaye miyaarada iska TV-ga PlayStation insha Allah markuu imaado I hope inuu ku farxi doono saarajeenayo inuu ku farxi doono ayaa rajeynaa ilaahay yiraahdo soo marka qolka wiilka aan iga yar waa mid ka yar I think maahira taqaanin maahir ma kan ka sii yar waa let's go qolka saddexaad laba qolaad soo marnay qolkan waxa seexanaya laba wiil oo mataane sariirta hooyo waaye okay sariirteeda hooyo waaye waxay dhahday sariirtan waa jeclahay iga reebin soo marka waxa dhaw waa ku soo qaadaya laakiin maxaa la dhahaa adigu ku dhigay ayaa isku fahanay soo marka waxa kaliya oo maxaa la hadda oo aawado waxa waaye sariirtan gurigaas ka soo qaaday wixii kala dhan meesha ugu soo tagay soo laba wiil oo yaryar soo mataane bisa qolkan seexanayso qolkan armaajadaas quruxda badan oo qaba
musqul uu qabaa wala zaid uu qurux badan gurigan still uu weyn soo marka qolkan waxa ka dhigay qolka oo maxaa lahaa labada wiil oo mataana oo yar yar oo hooyo dhashay right-na waxaad ka saaray way jiifaan soo qolkan saas ugu sameeyay marabaad oo saaray extra barkin way leeyahay but because baatiga laba barkin uu qabaa armaajada uu geliyay inkiisi u baadan maxaa la dhahaa barkimo kale armaajadan bay ka soo baxsanayaan haduu Ilaahay yiraahdo so qolkii afraad waa qolka hadda joogna let's go wixii ku jira aragna qolkan waxa iska leh labada wiil kale oo yar yar oo hooyo dhashay okay qolkan dhanba waxa ka dhigay white cream is not white kaamirada white zaid ka dhigayso cream laakiin waxa uu saaray blue iyo gray iyo maxaa la navy blue ma haya waxaan kaamirada ka dhigayso gray iyo white waa somehow gray waa rogan waxa ay gray iyo white sirta white daha white still qolkan asagana intaas armaajo qurux badan oo dhar la gashto labada wiil oo yariiska iska qolkan saartaan anisana maxaa la dhahaa decoration guriga dhigtay oo maxaa la flower had meelaha yaalaan video marka duubay laakiin flowerada meesan yaalin hadda dawla soo gaday videogana saaxada ka hor duubnay soo marka decoration yar oo baan ku dar qol guriyaha but actually caadiga sidaan u yeelaa qolka marka qolka afraad waaye I hope qolkii wixii dhan weynoo soo dhamaadeen waxa kaliya oo noo haray fadhiga meesha hadda wax u duubay fadhiga waa inta dhaxda waa labadan qol iska soo jeedo qolka hadda xadka iyo qolka hooyo waa okay so qolka marka qolka naagta shaqaalada bad aniga waxa jeclaystay inay ilmaha homework iyo dugsiga iyo waxa ku akhristaan qolkan waxbarasho bis ay u noqoto buugooda iyo qalinkooda inta saartaan inta ay ku soo bartaan intana ay ugu soo dhaxbaxaan ayaga waxay ugu talagaleen guriga dhistay maxaa la dhahaa naagta shaqaalada inay saaxato badaha ugu xiray 6 kursi waa u geliyay we are in the kitchen jikadan joognaa like alaabta jikada waa dhan waa koonaha like waxba ma soo qaadin way gaaska waa gaday fridge waa gaday maacuunta waxa dhan waxa ka ilaaw malaha rajeynaya blue banka maxaa la fiimtada kii heelka lagu timaayay glass oo bakeeri oo tarmuus oo digsiyo wax dhan waa samee xitaa frinjeerka waxa u geliyay maxaa la dhahaa hilib wixii walba u baahan tahay ukunta waa loo tafqabuga ka soo baxaya saan qabugan is not good soo marka ayaan daalin caana geelka wax walba xambada yaanyada everything insha Allah waa wada dhigay haduu Ilaahay yiraahdo aan caana geel zaid oo jecel the reason oo soo gaday shaaxa lagu kariyo kama wafaqo but still maanta video markuu duubay mar hore ee subaxnimo but maxaa la waxyaabo badan oo daray qolka fadhiga ayadin dhiman qolka fadhigana decorationkiisa gooni oo diyaarinoya insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waa u dalbay like 3 days dhiman qadada waa la dhameeyay waxa just dhiman miiska oo maxaa la dhahaa kuraasta caadiga dhiman qadada u dhameeyay inta waxa ugu ruriday maxaa la dhahaa caanaheeda iyo waxeeda waxa ka sii dambeeyay biskuud badan keenay iyo maxaa la dhahaa waxa soo dhan but insha Allah kuwaas ay gooni anigu soo doobi doonaa halkan waa saabuunta iyo tiishka bas wax kale ma ku jiraan intana waa aragtaan baasha sida ugaalida laga sameeyay waa jecla jaalaha ugaal laakiin mar dhan ma cunin saxama digsi darsan loo soo gado waa aragtaan insha Allah wixii ku soo kordhay halkan halka raashinka waaye saliid oo sokoro kulli waaye wixii ku soo kordhay insha Allah waa ina soo doobi doonaa YouTube-kana insha Allah video wax baan soo wada isku day inaad ku xirnaataan videogan video wixiga inta ka kulmayna ama routine-ka ni soo doobayo waxaan leeyahay sidaas nabad geliyo